gudoomiyaha xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed Dr. Salaad Muuse Cali ayaa ka hadlay bandowga ay ku soo rogtay dowladda federaalka Soomaaliya dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Muqdisho. waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo bandowgii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay shacabka Soomaaliyeed oo ku aadanaa hal saac habeenimo inuu bandowga dhaqan galaya waxaan u soo jeedinayaa dowladda Soomaaliya waqtiga halka saac la joogo waa xilliga afurka dadka maqaayadaha iyo gudooyinka iyo meheradaha lahaa ay sameysteen uguna tala galeen dadka Soomaaliyeed waxay ku afur lahaayeen in afurkii xilligii lagu aadanaa la yiraahdo waa la xirayaa gudooyinka iyo maqaayadihii ganacsatadii wax diyaarsatana waa laga xirayaa dadkii afurkii doonan lahaana meel ay u doontaan ay sanaysan waa dhibaato aad u weyn waxaan rabaa in dowladda federaalka Soomaaliya aan kula taliyo inay bandowga ay gaarsiiyaan 4 saac habeenimo ugu yaraan 3 saac si ay dadka u kala adeegtaan dadka maanta oo dhan bay sooman yihiin xilliyada afurkii ilaa hal saac waa adeeganayaan waa afurayaan salaada taraawixda way aadayaan markay ka yimaadeen in bandowga dhankaas lagu beego ayaan dowladda federaalka ka codsanayaa una sheegayaa inay sidaas ay bandowga ay maaragtay heerkaas ay gaarsiiyaan ay u qaadaan 4 saac ilaa 3 saac maxaa yeelay xilliga dadka adeega lahaayeen ayay halka saac ku aadan tahay marka ma ahan hal saac iyo wixii la mid ah ma naqanayo wax maangala ee dadka ay ku kala adeegan karaan ee wax ku qabsan karaan marka waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka Soomaaliya inay aqbasho codsiga ah inay geyso hal saac 3 saac ilaa 4 saac waana mahadsantihiin.